Carruurtan yaryar iyagoo guriga ku hor ciyaaraya ayaa mid ka mid ah wuxuu kubbadii ku dhuftay aabahood. Markii la weydiiyey cidda ku dhufatay, waxay farta ku fiiqeen wiil yar oo agoon ahaa oo aabahood uu adeer u yahay. Aabihiina isagoo aan waxba hubsan ayuu wiilkii iska garaacay. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa aabihii guriga loogu soo tuuray bashqad. Markii uu kala furayna waxa ay noqotay lacag, aad ayuuna u farxay. Bal u fiirso, carruurtiisii waxa uu u soo iibiyey hadiyado. Waxa uu bilaabay inuu u qaybiyo. Carruurtiin aad ayay ugu riyaaqeen hadiyadaha uu aabahood u keenay. Balse waxaa la yaab noqotay, wiilkan uu adeerka u yahay ee agoonka ah waxba muusan u keenin. Inkastoo wiilkan agoonka uu yar yahay, haddana waa noole caqli leh. Waxa uu bilaabay inuu la ciishoodo xaaladdan murugsan ee uu ku sugan yahay. Waxa aabihii u yimid oo soo booqday mid ka mid ah saaxiibadiisa. Waxa uuna ka waraystay xaaladda carruurtiisa, si qaasana wiilkan agoonka ah. Waxa uuna u sheegay inuu faraxsan yahay oo uu sida carruurtiisana u dhaqaaleeyo. ما فرق بينهم، أي شيء أجيبه لعند جيران أجيبه إليهم. الحمد لله على كل حال. Isla markii waxaa fariin soo dirtay xaaskiisa, waxayna u sheegtay in wiilkan yarka ee agoonka ah uu guriga ka saaro, haddii kalena ay ayada guriga ka tagayso. يعني أودي دار الأيتام. ما يخص ولا مكان اللي بتوديه. هذا يتيم ما أقدر أخليه. Waxay xaaladdu sidaa u cakirnaataba. Maalin maalmaha ka mid ah wiilkii yaraa ayaa wuxuu maqlay adeerkiisa iyo xaaskiisa oo murmayaan. Waxaana laga hadlayaa waa xaaladiisa. Eedadiis waxay leedahay, wiilkan yar waa inuu guriga ka tagaa, waayo ilmahayga ayuu iga qaribayaa. أمي أنا قلت لك ما أمي في البيت. أوه لا تجنني نعم. Markaas wixii ka dambeeyana walaac iyo murugo ayaa la daristay wiilkan agoonka ah. Waxa uuna go'aansaday inuu isaga tago guriga uu ku noolaa. Haddaba walaalayaal, waxaa badan dadka dhibaateeya agoonta. Annagoo og in Allah subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka meelo badan uga hadlay agoonta, aan Allah subxaanahu wa tacaala dartii u xurmeyno agoonta. walaalayaal, waa walaalkiin Axmed oo idin leh muuqaalkan walaalaha kale sii gaarsiiya oo sii sheer gareeya.